faan maaha inaynan tahay cumaamad casiya khamiis cad social media ku dhex wareegaysataa waa fadiixa waa akhlaaq xumo halkii u dambaysay waa mas-uuliyad darro waa caarun wa caybun calaa ahliha intaanay nafteeda ceeb ku noqon bay ehelkeeda ceeb ku tahay culammadana mas-uuliyad baa ka saaran waa inay dadka xaqa u sheegaan xumaha ka digaan bulshadooda waxa ku dhex faafaya waa inay si dhow iyo si dheer ula socdaan waa inay la noolaadaan bulshadooda oo aanay ka noolaan culammadu waaqica ay ku dhex nool yihiin waa inay ogaadaan oo ay la socdaan shareecadana ummaddu markay taraarto ay ku soo dabaalaan maxaa yeelay ilaahay baa ballan ka qaaday culammada latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah dadka xaqa inaa u caddaysaan oo idan ka qarin baa alla yidhi culammada ballan baan kaga qaaday jalla wacalaa ballankii ilaahay ha ka soo baxaan culammadu iyo dadka ducaadda dadka khayrka ugu yeedha oo maaha muhiimaddu in waxaan la ysku khilaafsanaynba aad waxa weeye wakhtiga aad geliso iyadoo oo akhlaaqdii iyo dadnimadii iyo diyaanadii dadku ay burburayso taa waynad aad iyo aad ay si dhow culammadu ula socdaan waa akhlaaq xun oo inagu soo korodhay waxa wata iclaankan iyo miidiyahan xarkaha goostay waxa wata dhaqanadan xunxun ee sida dhibta yarle loo gaadhayo arrinkaa waxa wata fawaaxishta iyo xumaanta indhaha laga qarsaday ee aan la iskula yaabahayn in gabadhu iyada oo la garanayo wejigeedii iyo waxa weeyaan maxaan ku idhahdaa jasadkeediiba caynteedii la garanayo inay public timaado waxa ku kalifay wax kale ma aha waa macallinka xun ee guryaha u jooga ama facebook dheh ama twitter dheh ama whatsapp dheh ama waxaad doonta ku sheeg waa miidiyaha xarkaha goostay ee ruuxu wuxuu doono uu ku qoraayo oo inaad ilmahaaga inantaada iyo inankaaga waxay qorayaan iyo waxay ku qawlayaan iyo waxay qabanayaan intaba waa inaad la socotaa waalidow rag iyo dumar labadaba hooye iyo aabbo labadaba mas-uuliyad baa ka saaran yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara dadkii alliyo rasuul rumeeyeyow nafihiinna iyo ehelkiina naar ka badbaadiya aquulu maa tasmacuuna wastaqfir magaalada koonaheeda haddaad tagto koonayaasheeda gaar ahaan koonaha koonfureed iyo galbeed oo dhulka doogu ku badan yahay ah ama dhirta cagaarani ku badan tahay way jiraan faamiliyo iyo reere iyo xaasas si wanaagsan u baxa oo ubadkooda soo ciyaarsiiya way jiraan iyagu waxaase ku dhex jira oo badan oo faamiliga iyo usrada iyo qoyska baxaya 100 goor ku labalaamaya hablaha yaryar iyo inamada yaryar isla baxaya ee ina dalxiis iyo markaa soo faakihaysi ama laydhsi laga yaabo waalidkood inuu moodayo inay ku baxeen xumahay samaynayaanna aanad waxa weeye aanad ka sheekayn karin ama aanad malaysan karahayn xukuumaddu way dadaalaysaa khayr badan allaha siiyo gaar ahaan taliyaha booliiska ilaahay waxaan uga baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu xaqa waafajiyo kuna garab galo uu dadaalaya jazaahu allahu khayr annana waa ku ammaanina waana ku garab taaganay meelo badan baa booliisku gaaf wareegayaan oo markii hablaha yar iyo inamada yar arkaan kala didinayaan oo qaarkood ay qabqabanayaan laakiin waa arrin xadhkaha goosatay oo booliis qura in lagu eego aanay ahayne in shacab iyo dawlad laga wada hawlgala ay tahay culammadu inay aad uga hawlgalaan shicibku inay ka hawlgalaan oo ganacsatada waxgaradka waayeelka culammada cid waliba inay gacan ka geysato oo booliiska lagu garab istaago la dagaalanka anshax xumida iyo dhaqan xumida waa dhaqan inagu soo kordhay oo xun inay ina yari raacdo inama ajnabi ka ah oo wax alla waxay ku samaynayaan aan waalidkoodu sheegi karayn waar waalidka inantiisu kowda habeennimo guriga ku garaacayso ee ka furaya ee weydiinayn min ayna anti wa ilaa ayn xaggeed ka timid xaggeedse u socotaa bilaahi calaykum waalidkaa mas-uuliyaddiisu waa maxay